maanta waa maalintii aan gumaysiga waddanka ka saarnay weeye. maanta waa maalintii geedi socodkii gobonnimo doonka iyo halaagii iyo dhibtii iyo dhimashadii iyo siligii aan ku xorownay weeye. waxa ay ku doodi jireen wuxuu ahaa maxay ka farayaan gobonnimada, waxay cunaanba ma haystaane maxay ka dhigayaan, u tuura maradan ay la meermeerayaan. 6 bilood dabadeedba waan ku soo noqon doonaayo waan u talini doonaa buu ahaa hadalka. inaan baynayno hadalkaasi iyaan u sara kacnay. geedi socodka dhismaha iyo horumarka waa geedi socod dheer weeye oo dhib badan weeye. maxaa yeelay gobonnimadaada saad u adkaysato waa inaad baahiin lahayn weeye. midnimada qarankuna waa muqadas weeye, waa lama taabtaan weeye. fitnada iyo waxa ka kaca yani qabyaalad iyo dad fidnayn ka kacay hore uma qaboobaan. wadana idil bay rogeen waa ogtihiin. inaan iska ilaalino maantana waan ku dardaarmaya, shalayna waan ku dardaarmay, barina waan ku dardaarmi doonaa. xildhibaan cali cabdi faarax oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka dalka Jabuuti kana soo shaqeeyay xukuumadihii kala dambeeyay ee dalka Jabuuti ayaa ka hadlay halka maanta uu dalku marayo. dalku in maanta dadaalka weyn ee galay ilaahay qabtay uu soo gaarsiiyay maanta ay muuqatana in aan u dul joogo dalkeenu halkii lagu oranayay afka gaar haddii la gaaro aan laga dhaadhicin. madaxweynaha ugu dadaalay, dadkiisuna uu dadaalay. nabadda aan samaysanay adigaa nala qabtay. ilaahayow mar walba sidaa noo garab joogto noo garab joog. nabadda waadna siisay noo adkee. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Karaash oo kamid ahaa madaxda gobolka ee ka qayb gashay dabaaldegaasi ayaa isaguna dareenkiisa aanu wax ka weydiinay ayaa uu sheegay. dareenkaygu aad iyo aad buu u sareeyaa, waa la faraxsan, aad u faraxsantiin baan u faraxsanahay iyo si kasii weynba. shacabka reer Jabuuti waxaan lahaa farxadda iyo reereynta iyo horumarka iyo barwaaqada ku sii wada, nabadgelyadana ilaaliya, isku midna noqda. aad baad u mahadsantihiin. Saciid Maxamuud Aleel oo mid kamid ah ganacsatada dalka Jabuuti waxa isaguna uu hambalyo uu la wadaagay guud ahaan shacab weynaha dalka Jabuuti. waa farxad horta iyo waxa weeyaan maanta waa marka la yiraahdo sanad guraagi calanka waa wax farxada. waxaas waxa weeyaan dad baa ku soo daalay, dad baa ku soo dhintay. horta iyaga inaan u duceyno oo waa laabtaana soo gaarsiiyay. annaguna inaan inteedii ka qaadno saa madaxweynuhu u sheegaba. waddankan waxaa islahaayeen dadka ajaanibku 6 bilood dhaafi maayo, laakiin 42 sanadood baan soconaa iyo inta in ka badan inaan gaarno hadduu la yiraahdo. waa farxad weyn, farxad gaar ah noo tahay maanta. inkuna wad maasantiin inaad adduunyada noo gaarsiisiin wararka. dhammaan gobolada kale iyo degmooyinka dalka Jabuuti ayaa maanta iyo habeenkii xalay ta ahayd aad looga dabaaldegayay munaasabadda sanad guuradii 42aad ee dalkaasi Jabuuti.